أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على عبد الله النبي الله رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. كلنتو وناكسن خيري يا سيد عبد الرحمن وإن الله مركلي كلنتو وناكسن. خير واحد وقتي من maaragtay dagaalka gardarrada ee xulafada zaalistayaasha iyo Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen dalka Iran inuu socdo. kolka bal insha Allah ta'ala waxyaalo maaragtay macluumaad ay soo ururiyay aan halkan maanta waqtiga ku tahay idin la qaybsado. dad badan ayaa runtii maaragtay soo weydiiyay waxyaabaha maaragtay ana waan ka aaminsanayay fikirkayga saas oo kala kolka la wadaago haddii la yiraahdo wixii jira. marka koowaad waxaad ogaataan dagaalkan lagu qaaday Iran waa dagaal waqti hore la qorsheeyay. haddaad daawatid videogii ugu dambeeyay kan videogan haddaan soo geliyay ka horreeyay waxaan idiin sheegay in sanadkii 2001 uu jarnaal ka mid ah jarnaalada ugu waaweyn dalka Mareykanka waa jarnaalkii ciidamada NATO xukumi jiray ee la yiraahdo jarnaal Wesley Clark uu sheegay 2001 markii labadii sano Mareykanka la soo riday kadib qodobkiin maaragtay labada sano din ay inside job wax dibadda ka yimid uusan ahayn ayaa wuxuu janaalka sheegay in Pentagon-ku uu sheegay in 5 sanadood lagu heshiiyey ama Pentagon-ku aansaday in la burburiyo 7 waddan 7 waddan oo kala ahaa macnaha dulmar yar baan ku sameynaynaa waa Soomaaliya, Suudaan, Liibiya, Suuriya, maaragtay Ciraaq iyo Iran lagu soo dhammaystirayo. kolka dagaalkii Iran baa socda hadda intaa kalena waad ogtahay maaragtay si toos ayaa loo dhameeyay ama si toos ayaa loo qabsaday waxaad ujeedaa say tahay burburintaas runtii waa fikrad ka timid Yuhuudda iyo Israa'iil taasoo ah in wadamadan muslimka ah ee toddobaad la sheegay iyo wadamada kale muslimka ay ka dibacsan yihiin inaan wax dibadis lagu sameyn inaan wax maaragtay horumar lagu sameyn ay tahay in la burburiyo oo dhammaantood la isku diro oo dadkii ama beelihii ama shacabka waddanka beelo iyo kooxo ay dagaaloogayaal iyo warlord kala wataan oo kale loo kala qaybiyo kadibna sida la isku diro waxayna sheegeen in modelka ama habka ama hanaanka ay ka doonayaan Iran iyo wadamadan gadaal laga weeraray oo ay tahay sida Suuriya iyo Liibiya oo kale wixii lagu sameeyay Soomaaliya. kolka waxaan aragnaa Soomaaliya waa meeshii lagu waana qaatay oo lagu cashar qaatay oo ahaa macnaha in gebiyaha dhulka la burburiyo koox loo kala saaro kooxna koox kale aysan heshiis lahayn sidaan lagu burburiyo. marka dagaalkani waa kii ugu dambeeyay waxay nagu cusub maaha inteenan maaragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fahansiiyey oo meeshu ku socdaan iyo sida xaaladdu tahay. kolkaas ay shahaadayaan waxa weeye iyagana maaragtay 12 sano ka hor sanadkii 2005 markii Ciraaq Mareykanku qabsaday kadib dagaalka burburka ahaa ee 2003 laba sano kadib 2005 ayaa madaxweynaha waqtiga ninkii Bush ahaa ee fidnada riday madaxweynaha uu ahaa la oran jiray Dick Cheney maaragtay bilo ka hor hal ama saas oo kale hal sano ka hor buu dhintay ayaa wuxuu yiri Iran baan weerarnaa kolka Iran bay isku diyaariyeen hase yeeshee maadaama arrintii Ciraaq ay xoog carab ku noqotay oo ay meesha wax ka dhaceen Iran waddan xoog la tahay Iran ay sida ogtihiin macnaha ay tahay waddan adduunka ku rooyahay maaragtay xagga juqraafiyadda aadagtay la qabsado oo buuro iyo saas oo kale ah halka Ciraaq iyo wadamadan carabtu ay ka tahay dhul siman oo buuro lahayn kolka way cabsadeen dib ugu gurteen hase yeeshee Iran 20 sano ugu dambeysay waxaa caddayn inay u diyaar garoobiyeen oo adduunka ku ogaayeen in maalmo kamid ah lagu imaan doono sida hadda dhacdayba maaragtay ku madaxweynayaashii hore san macnaha carabaabay Bush waqtigiisii oo jawaabta geysteen ilaa kii hadda ugu dambeeyay Joe Biden ah yani dhammaantood maaragtay way ka cabsadeen Iran kuma ay dhicin hadii jeerna maaragtay nimanka Zionist oo Netanyahu way xisbigiisa Likud la yiraahdo mayalka adag oo la horan karo waa dad nacalada ku dhacday waa dad adduunka ku rooyay jihadii ka luntay haday quraankan aad buu Allah subhanahu wa ta'ala ugu horay in dadka iyo dad fidno ayaa ka dambeeyay hase yeeshee muddo markii madaxweynayaal badan u keeneen way ka diideen laakiin aakhirka waxaad moodaa inay heleen madaxweynaha ay raadinayeen kaas oo ah ninkan kale ee maaragtay aqoontii fikirka waxa aan lahayn maaragtay reality TV show star ahaa niska Hollywood waxaan ciyaar ugu haysta hataa shalay ugu dambeysay waraysi uu bixiyay wuxuu yiri Iran waxaan maaragtay u bamgareynaa for fun ciyaar oo kale macnaha marka kan ay heleen iska ciyaar suuq oo kale oo mas'uul ahayn oo غير mas'uul saad aragtana hadda American Empire waa sii burburaysaa
marka ay boqortooyada sii burburaysan waxa lagu yaqaanaa niman ninku ka waaliya oo ka shakhsiyad xun yahay oo ka daciifsan yahay oo ka caqli yar yahay ayaa la keenaa bilmatali boqortooyada Rome oo kale ninkii la oran jiray Nero ama saas oo kale emperorkii kale ama boqorkii kale la oran jiray Caligula dad waalan bay ahaayeen waana dadka sababay boqortooyadii burburto kolka dagaalkan Iiraan lagu qaaday macnaha waa dagaal la qorsheeyay waa dagaal saasa hase yeeshee iyaguna waxay hadda adduunyada tuseen 20 sano oo diyaar garoow waxa uu keenay waad ogtihiin sawaariikh cajaa'ib ayay keensadeen oo lagu sheegay riddadoodu ugu dheeri 2500 inuu yahay sida sijiil oo kale ama adduunka ku roon yahay maaragtay khaybar shakaal oo kale aadii gantaaladan oo fiiladii hore aan uga sharaxay oo macnaha ay yuhuudi kula dagaalamayaan saas oo kale marka adeeguna waa isdaafaceen waxaad ogtihiin macnaha waxaan carab ligaad iyaga horaa loogu takhalusay horaan ku sheegay lacagtan waxaana ku fidnoobeen haddii waqtigii nabigeena sallallahu alayhi wasallam rasuulkeenu 13 sano ugu dambeysay qurayshtii isaga la qabiil hoose ahayd ayuu kula dagaalamayay ama maaragtay dagaal afka iyo dacwada uu ku waday magaalada Maka kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam asxaabtii markuu soo haajireen magaalada Madiina dagaalka ayaa ku bilowday 10 sano ugu dambeysay dacwada dagaalkaas oo ahaa mid afiyaadima oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu kula jiray maaragtay adinkan uu kula jiray yahuudi afkana macnaha ay dacwadii waxa soo dhan loo jeedinay munaafiqiintii marka waxaad moodaa isbahaysigii munaafiqiinta yahuudi ayaa ku 912 jasiiratul carab qabsaday haddana iyaga xulafaa laakiin macnaha Iiraan baa ku kacay haddii Iiraanna wuxuu yaala malahan haddaysan isdaaficin sida Liibiya iyo Soomaaliya iyo Suuriya laga dhigay baa laga dhigi doonaa jabadii maaragtay hadda Suuriya qabsadoo kale al-Nusra jiray ama qaacida saas oo kale waa aragtaan hadda inay geeyaan boqolkiiba boqol Israa'iil la safteen marka jabadaha ay weligood baadii jabada waxay ahaayeen iyo si ay masaali ay maaragtay awshooda wadaan oo lagu talagalay in dunida muslimka lagu burburiyo maaragtay horumar iyo waxba ma keenaan aan ka ahayn inay dadka xasuuqaan oo isla markaana Israa'iil u loogaan kolka yacni waad aragtaan Iiraan inay isdifaacayso gantaalaha adag inay la timid haddii la guurooyo dagaalka dambaysa oo lagu qaaday macnaha ay u dagaalamayaan Iiraan waxay uma dagaalamayso inay Mareykan jabiyaan iyo xulafadiisa ay waxay u dagaalamayaan haddii la guurooyo laba qodob baa la isku raacay marka koowaad inay iska daafacaan oo la burburin oo wadankooda haddii la kormarin sida wadamada hore ee idin sheegay iyo talabaad waa ninkan kale madaxweyne Trump ay haddii la guurooyo madaxweynenimadiisa dhaawac u geysteen khasaaro u keenaan shacabka Mareykanka iyo dadka saaxiibul caqliga iyo rayil caalamka guud ay ka hor keenaan sidaana madaxnimadiisa ku burburto labadaas waa labada qodob ugu waaweyn haddii ufkood dabciyan macnaha inay ismuujiyaan haddii inay yihiin lugtii ugu dambeysay musiga daafacaysay haddii hore waxaa idin sheegay macnaha haddii Iiraan laga takhaluso Tuuriga ku xiga macnaha wayba bilaabatay oo already yani ra'iisul wasaare hore oo Yuhuudda oo la yiraahdo maaragtay Nathaniel Bennett maaragtay waa ku yiri Turkigu waa new Iiraan oo Iiraan baa laga dhigaya marka Turkiga waxa ku xigi doona haddii uu meel marta macnaha oo Soomaaliya ma inay meel mari doonto Pakistan sidaas laga takhalusay carabta khaliijka iyaga awalba baad laga qaadi jiray waxa ogtiin sanadkii hore 2020 markuu Trump White House ka yimid inuu Sacuudiga booqday in adduunka ku roon yahay 600 bilyan waa gudbi Sacuudiga ka qaaday investment ku sameeyeen adduunka ku roon sidoo kale maaragtay qatar diyaarad 400 milyan iyo wax kale la ogyahay waxani waa baad uu ka qaaday hada sidii maafiyada oo kale kuwan kale Bahrain iyo 17 bilyan gudbi ayay Mareykanka ka qaaday oo dhaqaalaha Mareykanka ay geliyeen imaaraadkan hadda iska socotaayo qoyska maafiyada moogtay kan Trump sodog uu yahay ee Jared Kushner abiyi maafiyo ahaa abiyi waa ninka walaalkii waa ninka adduunka ku roonyahay his brother-in-law ama seedigii walaashii ninka qabaynta ganacsi iyo business wax isku qabteen ayaa wuxuu yeelay naag ka mid ah naagaha adduunka ku roonyahay jirkooda ka ganacsada ayuu diyaariyay oo uu keenay kadibna kaamirad buu ka duubay kadibna walaashii uu soo gudbiyay kadibna ninkii xeeraaleynta Mareykanka federaalku joogay New Jersey loo jiray Chris Christie oo campaign-kii Trump ka qayb qaatay ayaa markaa prosecutor ahaa ama dacwad ku soo oogay kadibna waa la xiray kadibna akhirkii Jared Kushner ayaa daaqada ka saaray ninkaas marka qoyska maafiyada iyo ka kale la joogay macnaha waa lugtii imaaraadka baad bay ka qaadan investment ka qaadan bilyan Iiraan 3 bilyan baa la sheegay inta la inoo sheegay in investment ama maalgashi lagu sameeyay oo meelahan hadda Iiraan duqeynayso oo kale bangiyadan oo kale waa bangiyadii Trump baada carabta uga qaadi jiray marka macnaha carabta la duleystay ayay diideen Iiraan in iyagana markooda maaragtay la duleysto oo baada laga qaado dagaalkuna waa saas weeye macnaha waana hadii waxana waa systemkii boqortooyadii Dajjal oo la dhisayo
yuhuudda doonaysa maaragtay waxaan ka sheekeyn jiray waa Greater Israel dad Soomaalida ay la yaabana baadna aragtay safiirka Mareykanka ee adduunka guruu Israel u fadhiya inuu sheegay ninka la yiraahdo Michael Huckabee in bariga dhexe beentoodii iska sheegeen maaragtay yuhuudda loo ballan qaaday ay tahay inay qabsadaan marka carabta iyagu waxa weeye adduunka guruu waa neef goola ama neef cayilan oo waxaan isku daafacalahayn oo lugaha iyo boqonaha maaragtay ka xidhan oo geedka xiran oo u baahan inaad u timaado midida mariso hase yeeshee nimanka waa isdaafacayaan marka yani iiraan arrinteedu waa saas maaragtay arrin yar maaha iyagu waa ogyihiin survivalkooda iyo mustaqbalkooda ayay u dagaalamayaan haddii laga takhaluso wuxuu yaalla ma laha sidii haddii suuriya la yeelay eri soomaalidu moogtahay waa hal itirig ama waa hal qowmiyadood laakiin waxaa loo helay iyaga cudurka leeyinkaas waa cudurka qabyaalada qabyaalad baa loo keenay laakiin meelihii qabyaala jirin ee dadku qoomiyad yihiin ama itirig waxa la dhaho maaragtay iyagana itini baa loo qaybay marka iiraan iyagana qorshooda wuxuu yahay haddii ma guulaysanayaan laakiin say niyeysteen waxa waaye macnaha in iyagana loo kala qaybiyo qoomiyad oo dadka baarsi la yidhaahdo dadkan azeri la yidhaahdo oo waqooyiga iiraan dega oo xadka azerbaijan dega dadka kale baluujiga la yidhaahdo oo sunniya oo bakistan iyo xadka iiraan dega carabta degta koonfur bari iiraan iyagana oo sunniya saasoo loo kala qaybiyo dadka kale ee maaragtay xagga bariga afghanistan xiga iyaguna qoomiyado kale oo afghanistan u dhowa marka say tahay macnaha qorshaani waxa weeye waa qorshe yuhuudda soo aagushay yuhuudda israa'iila oo yahay in waddan aan la wadankii muslim ee fartaaga adduunka ku roo yahay macnaha laga takhaluso dhinaca kale waxaad arkaysaa maaragtay Soomaali badan oo iska eedeynaya nimankan Iiraaniyiinta oo dhacaya macnaha haddii qaar baa gaari ku sheegay qaar baa saas yiri macnaha ani shaqadeena waxaad qof kale ku sheegtaan yani qofkii horan u sheegay waa diga maqashay qofkii la tawxiidani waa iga ma helay laakiin hase yeeshee macnaha bilaadnimada marka la fiiriyo macnaha dalkan Iiraan waa waddanka kaliya isaga iyagii dowladoodu taageero xasuuqa iyo maaragtay dilka iyo genocide-ka lagu hayo shacabka Falastiin marka macnaha waana aragteen adduunka inay maaragtay dib weyn ka soo gaaray oo madaxdooda iyo jaraaladii iyo dhamaan intii kala dhaqaaqaysa la dilay marka yani dadkani bilaadnimada xataa miyaan la fiirinayn macnaha dadkani xaq bay u leeyihiin 47 sano ay cudurqalatiin ku jireen waxa ka salbaab walba laga xataa heer waxaa la gaaray aysan cidda la ganacsan karin aan ka heshiinaa shiinuhuna waa danaystay waa shuuciyiin waa majuusiin waa ogtahay yuhuudna aad hoostay kala shaqaynayaan ujeedadu waxay tahay in shiinaha warshadihiisii wixiisa baawar laga dhigo oo ay shidaalka Iiraan maaragtay kubiyataano iyo baysteen ama very deep ku gataan macnaha in loo loogo sidaas shiinuhu super power ku noqdo marka macnaha Iiraan albaab waddan kasta waa laga xiray in la ganacsado shiinaha kaliya loo furay shiinahana yuhuudda ayaa wadata waayo qorsho wuxuu yahay in magaalada Baytulquds ay yuhuudda ka dhigato xaruntii reer galbeedka hadda xarunta reer galbeedka waa Washington iyo London Soomaaliya laga wareejin doonaa say rabaan macnaha iyaga in Baytulquds baa la keeni doonaa galbeedka halkaas laga xukumi doonaa waxay kaloo qorshaysteen maaragtay marka ay ruushka Mareykanka ama NATO ruushka isku diraan oo kuwan kiristaanka sheegtay iyo macal turkigooda dee iskala jira isku baabiyo in shuruuhuna super power noqdo yuhuudna super power noqdaan marka yuhuud iyagu waa yar yihiin super power u noqon karaan dadkii ma hayaan lacagtii waa hayaan dahabkii laakiin waxay doonayaan in adduunyada cusub ee teknolojiyada بالمثل AI wax ku xukumaan digital money lacagtii digitalka hadda Soomaalida iyaga ka horeeya lacagta moogtay Soomaaliya iyo maaragtay Somaliland moogtay lacagteedu iyo dhammaan gobolada kale Soomaaliya waa digital waxa weeye haddii anteenada laga qaxiyo ama korontadii tagto oo waxay telefoon ku jaajgarayso weysid aad weydid ama haddii la gurooyay bangigaaga laga xiro waa ku dhamaaday dadkii gaajo u dhimanaya system ka xun ma jiro digital money waxa la ama lacagtan igu soo shubka waxana waa systemkii dajaal waa waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam haddaad joogto waqtigaas waxa ku haboon inaad aad iska dhaqato buuraha tagto aan ka sheekeeyaa anigu haduu la yiraahdo arrintaas marka yani waxa weeye dagaalkana dagaal yar maaha dagaaladii ay Ruushka ayaa bilowday dadka badankoodu ma oga dagaalkana waa dagaal cusub waa dagaal aan dhulka ugu dagaalamay waa dagaal hawada ugu dagaalamay dalkii aan hawada ku dagaalami karin hadda saan baa loo cuni oo macnaha adduunka guuriga loo dhamay Iiraan yani waa aragtaan inay dagaalameen gantaalba gantaal ku daran yahay sida gantaalka sijiil oo kale ay keeneen sijiil waa ogtihiin suuratul fiil ku jira waa dhoobadii waxaa laga keenay macnaha lagu haliyay asxaab fiil lagu haliyay ereyga sijiil yani waa asal hore oo carabiya laakiin hadda waxaa isticmaala qoomiyadda maaragtay bershiyaanka ama farisiga ama Iiraaniinta hadda aan u naqaano kolka yani say tahay iyaguna waa ogyihiin waa dad wax bartay dadkani waa dad tacliin leh iska afrikaanka iyo carabtan maaragtay iska baadilay xabadka loo garaacdo ma waa isdaafaceen dagaalkani waa dagaal saasa waddanka yare meesha yare Israa'iil yiraahdo
أي دولة سينا دولة بروية لو بلية المسلمة أو دولة مسلمة بروية دولة دولة كلاية شدال كواحد أي حكومة عرفت نسيت الضبارة وضارك هذا نقالي الدولة يسريدي أويلكي يري أن الدولة العصب معناها بلارك يديك يكش قيس واسري وأويلك أويل ديل وعي وشدي يوروب يشينا جوب سنة وشدي دمام جوب سنة أركب إنرجي بس جوب سنة وحيرنا كوكين غاسكي لنجيل الله جرتة ماشي سدي معناها أفريقيا تولير أفريقيا بعديها ما أركب إنرجي جنا مسلم كاهية لكن مسلم كنا دوادتين منافقين باللوني بي وشان بقول سنة كور بالدليل مسلم كنا وحوك تمر ترى بقول سنة كور مثل كسر المغالطة كي يقول هذا ضمن مسلم حرام الجرين عن كائن ماركتي يعني إيران ودولة بروية ماركتي يجنا لقد جوجين إنجليز كنا عكدري ووضع كنا سلبجان لإيران أنت لقى جري السوفيت الوتري أساس وكلام معناها مركا المسلم قريب كان يستدين في بان الدنيا اللي سويني يعني مركا لما كان إيراني أنتم معناها لفظ بنوتة قلنا مركا إن بدر الصومالية صار دين عربي ودينان سكوا على السفير هذا حتى الدين بالدينان ده حكى أسكار إنه ضد كان يمارك كان عقود فلسطين بيقول الله ضد مساكين تا مسلمين تورتوا دلوا حسوقي مركا يعني وحى عبون هدي هذا المارك ده اللي سويران قلبي كده غيري وهذا لكن حنون قاعدين كلهم بيسين هتكجا مسجد وهذا وحنا كشيء waayo waa arkaa waxa lagu sameeyaa waa waxay damacsiin waddanka soo siiyay ku sameeyaan waxaan caabtay maaragtay yuhuudi gurbaanka la tumanaya ama muslimka kuwan kala ah sida Turkiga iyo Masar iyo kale kulli halal badamaantood kawaanka loo saari doono haddii Iran laga takhaluso Iran waddan kaliya weeye inuu gantaalo waddo nimanka oo iska qabto haddii Soomaaliduna hore waxa uu tiri gaal jabkeedu way qarsataa jabkoodii weyna aad bay u qarsadeen Iranna si fiican bay u dharbaaxday jib weyn bay ku dhufatay jib weyn bay u geysatay haddii istaafacaasana ku jira مارك نيكن كلا يدل يقولون يجينا آية الله أوضي غري على حسين آية الله وداي مستبى ليراد مستبى وحويات معناه مستبى وكيل طورتي ما يعني ورام بوجرة سورة النحل بوجرة نيجا إنما في عليه سبحانه وتعالى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستباه وأداه إلى صراط المستقيم نيجا إلى رادورتي وكنا عنوني كيت وصنا باللغة أيضا وحياي شاكرا لنعم ربي هذا ربي يونيك كوان بيجري هذا يوتيوب واحد سبار كان ضد جويسنا أو يلا دوتي وأنا بين هذا وري أو يلا إلى الله دوتي لكن ما كعاسي على كلام نوضي آخر كده مرة شامتي عارش واحد تصور عليه بدي يسوق محمد الدين عليه السلام فقال لكن ما كان إيران أنتم لفوضى وتقالوا يا جات عودي بوطا وحط بملأ من الدنيا سيدا ما رأيت الدنيا المدى عربي أفريقيا كمسلم كغاتين وقالين يبغاتين وسادل كل وجه marka macnaha dagaalkan meesha Soomaaliya intay isdaaficeen waa isdaaficeen waa aragtay yuudi hadda tabartoodu aad bay xunta Israa'iil waxay leeyihiin nuclear bal Soomaaliya adeeranna waxa la yiri macnaha isku raaceen culimada khibrada ee military in hadii ay Israa'iil nuclear isticmaasho hadii Israa'iil waxa lagu tahay Iran waxa lagu tahay Israa'iil shan 15 jeer bay ka weydaay marka 9 milyan dhowr nuclear ku dhuftaan hadii xataa 100 ku dhuftaan baabiin karaan laakiin haddii jubga adoo Iran 10 milyan Iran degan ay dileen saas oo kala waxa la sheegay in iyaguna Iran toddobaad gudaheed ama bil ka yar nuclear samaysan doona kadibna ay markooda Israa'iil yuhuudda ku wareegi doonaan waxaan ogaaday yuhuuddu waa dhul yar haddii maaragtay waa gobol yar saas oo kala 3 ilaa 5 nuclear oo lagu dhufto meeshaas waxay noqonaysaa meel haddii la guuro yahay inhabitable inhabitable macnaha meel lagu noolaan karin oo dibdaba lagu noolaanin iyaguna يعني ويوجين هذه أيضا مارك باكستان يو مارك يقول كوري وصوهرين با شينا يروش شينا يسوي يعني عنده يروش يسوي قوة سين عيسى كعد مران كوا يود وقوة يسوي كذا يا وشينها شينو هو معناه النوبل إسرائيلي مارك كل فمايو ويوجين وحنا وعوية إنه مارك المسلمين يو يكلكوا رجيلا نمان كان إندرو كلا ويا ورشوا مارك إيران بس تقولوا مسيبوا تقالوا يا وحبوا مارك مارك وانا بالعاري معناها أجين السوول بالوتيري دربي بالوتيري وحاول ضم بيانا مجرو هذه يقولوا واستفعيان مارك معناها دين ضرورة وضد المسلمين أنا حتى الدين الإسلامي دين على خير يعني وحول بلاد النوارة ملايين رجال بيضة أما أفريقيا أما إنديا أما إيشيانا أما لاتين أمريكانا أما يوروبيانا والمسلمين ما تاجر سوا وحاول تاجر واحد ضرب هذا سكوير حتى لو جير لو رجع بشي هوري لحد سنة في هوري لو بشي الله تجوا بشي جوني
يبيشنا هذا فبراير سيلا تنهيدي هذا جرب واحد يقول من الدارية ولا هذا البانوس على الشرر بانوس على يلا أساسي قل كده ممكن معناها بحوية دوي دعالمية يحق بينوليين ولا قدرين قدرهم بالمسلمين وحال ولك عنا وظلمي إذا غرب عدي ماركتي إذا غرب لو ببي بالبتل الصومالي وكلا واحد عن ساندين شيء يعني رول مور كصومالي أما سيد الصومالي اللي يلاقيها إنه كلا دبوا عيد الحب اللوديدو أو بليال دجال وحن ما من بلده يلوميه بيستدعي البحكمة ومن حولنا هبلاني وحنا أغيب كم إذا برضو كصوماليا ولا متلقي يدوك كعام من بني العراء يستخدمون تون المعركة وضل العوان عشرين كده واحد لو تلقي الإمارات كانت ظلم جي أي كصوماليا السودانية اليمنية الصومالية ليبيا سوريا فقوضي بعد كصوب بعد بعدين نعلم كيو عليه لبس ده حبريم اللوميان دبي سي هانجتي يقول هاي الإمارات قدامها أنا خياري وحوي سي هانجري ما عندنا ويبربرين ولا كلا هاجري ده السياسي فسقي يبلاي لما يشاك سعوتي على الله وقد علي وقوتي ولو كتري معركة رجنا الله جمالها إن يكسون ونسي هاجرين ولو حن عقاب الله صوتا دنبي الله صوتا ووحي مسلم كجري جرين يا ما فيه يلا جريا هذه إله سبحانه وتعالى قرآن نوحى كويري أيضا بدن أو حمان قوم كافرين أو حمان قوم فاسقين يساس وكلام مركب إمارات كفسق بها هاي فسق وعبد الله مركب دجال استحاض ونقول الإسلام صدق وده هو وين مدونيا لكن يمكن يوجد أي دونيا إني نقول الإسلام صدق الخصوص معناها حيابها هذا دجال يقولين يروش وكلا دجال كان يرى وقاضي وحرودنا وحيابها كذا بيوحوي عربة دتك المدونيا أي يوروبيا كذا ما ينسى مركب مدونيا عربة لغو مشهورة وتذكر شيء واللي يجي تصلوا المعنية ورنا والله شيء كمبريد عربة وتوردن كل يمكن يودي وراعية مركب وين دجال يريد ميلها كوريا إسلام كان إسرائيل اللي سافروا الحجريو العيد الصعوطة اللي قالوا حلوا عيد وقتي يعني كأرصو وحارة الصماء كل كغيره يوحوي يعني فينا وقت فينا صعوطة توحيد قال له حجزته هدول يقولوا وقت في عنكم النوري ما ركتي وهذا كان واحد صعوطة معنا هذه المريكان كان هذا واللبكي وراء النو جاري ما في الأصل الصور دنا وانكي هذا مسلمين تي مريكان هو باللوضي إسكع قارنتي باب باللوضي تركيا ولا شكيا باللوضي هي شركة دي أرجع حساب تمد يدو مسلمين تي مريكان كي مسلمين تا أنا بناهي معناها غارد أمريكا جو وغير أمريكا جو أما يوروب أي سوى حاجة في النظام شغل قرائن أي إن ضد دولك أو يمينه كشغل إنسان كعماشان الموقف كوكب السودان ده ولا جارك كمشغولان كل وقت فينا الوجرة إلهي فينا غير يعني قبل باديو وبالرمضان خير بادي رجيلية إن شاء الله تعالى خير. السلام عليكم ورحمة الله.